nool daafaha caalamka ayaa noqonaya kuwa carada walwalka iyo murugada ay ku badan tahay sida lagu sheegay sahan cusub oo caalamka oo dhan lagu sameeyay 3 meelood hal meel qiyaastii 150,000 oo qof oo wareysi lala yeeshay oo ku nool in ka badan 140 wadan ayaa waxa ay sheegeen in wajahan walwal ba'an halka ugu yaraan mid ka mid ah 5 qofba ay sheegeen in ay dareemaan murugo iyo xanaaq. sahanka sanadlaha ee shirkadda Club Global Emotions ayaa dadka lagu weydiiyay waaya aragnimadooda nolosha dhanka wanaagsan iyo xumaantuba. dalka Jaad ayaa dalkiisu aragti xun ka bixiyeen waaya aragnimadooda nolosha waxaana ku xigay wadanka Niger halka wadanka ugu wanaagsan uu ahaa Murugo sida lagu sheegay daraasadaasi. cilmi baarayaasha sahankani sameynaya ayaa waxay diiradda saareen oo ay dadku weydiinayeen waxyaabihii ay la kulmeen maalin ka hor maalintii xog wareysigan lala yeeshay. dadkii xog ururintani ka qayb qaatay ayaa la weydiiyay su'aal si aad ah ma u dhoola cadeysay mise ma u qosashay si wax badan looga ogaado xaaladda dadkani ku nool yihiin iyo waxyaabaha ay maalin kasta la kulmaan. ku dhawaad 70% dadka xog wareysigaasi lala yeeshay ayaa waxa ay sheegeen in maalintii ka horeysay xog wareysigaasi ay dareemeen farxad aad u badan. xog ururintaasi ayaa lagu ogaaday in heerka walwalka uu gaarsiisan yahay meel sare halka heerka murugada iyo xanaaqa sidoo kale sare kaceen. ku dhawaad 39 dadka wareysigaasi lala yeeshay waxa ay sheegeen in walwal ba'an dareemeen maalintii ka horeysay xilliga wareysigani lala yeeshay halka 35% sheegeen in maskax ahaan aad isugu buuqeen. 5 wadan ee ugu horeeyay ee dadkooda farxadda muujiyeen Murugo, Panama, Guatemala, Mexico iyo El Salvador. 5 wadan ee ugu horeeyay ee dadkooda walwalka muujiyeen waxaa ka mid ah Jaad, Niger, Sierra Leone, Iraq iyo Iran. wadamada Latin America sida Murugo, Panama, Guatemala ayaa ugu sareeya wadamada dadkooda farxadda muujiyeen waxa ayna sheegeen in maalin kasta ay dareemaan farxad. daraasadani ayaa lagu sheegay in arrintaasi ay sabab u tahay dhaqanka dadka wadamadani oo nolosha ka eega dhanka farxadda oo kaliya. wadanka Jaad ayaa ugu sareeya wadamada dadkooda ay hareeyeen walwalka murugada iyo xanaaqa caalamka oo dhan. 10 qofba in ka badan 7 qof oo dadka reer Jaad ah ayaa waxa ay sheegeen in mararka qaar sanadkii la soo dhaafay ay awoodi waayeen in ay helaan cunno. in ka badan 61% dadka dalkaasi waxa ay sheegeen in ay jir ahaan xanuun dareemeen. dalkaasi Jaad ayaa waxaa dhibaato ku haya horumar la'aanta kaabayaasha dhaqaalaha iyo colaadda ka jirta gudaha dalkaasi iyadoo daryeelka caafimaad iyo arrimaha bulshada ay sidoo kalena aad ugu liita wadamada kale ee gobolka. inkastoo xaaladaasi ay ka jirto wadanka Jaad haddana dadka wadamada Mareykanka iyo Gariiga ayaa ugu walwal iyo murugo badan dadka reer Jaad. dalka Gariiga ayaa ah wadanka dadkiisa ay aadka ugu walwal badan yihiin caalamka oo dhan waxaana 59% shacabka dalkaasi ay sheegeen in ay dareemaan walwal aad u badan halka 55% dadka qaangaarka ah ee dalka Mareykanka ay iyaguna sheegeen in ay walwalku uu ku badan yahay. sanadkii 2017 ayay warbixin qaramada midoobay maalgelisay waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay 5 wadan ee qaaradda Afrika ee dadka ku nooli ay ugu farxadda badan yihiin. waxaa sidoo kale 5taasi dal ka mid ah wadamada Algeria, Mauritius, Liibiya iyo Morocco oo lagu daray Soomaaliya. baarayaasha diyaariyay daraasadaasi ayay waxa ay darseen 155 dal waxayna sheegeen in dadka ugu liita dhinaca farxadda qaaradda Afrika in ay ku nool yihiin dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxaana ku xiga Burundi iyo Tanzania. wadamada kale ee liiska meesha hoose ka galay waxaa ka mid ah Rwanda, Togo, Guinea, Liberia iyo Suudaanta Koonfureed. warbixinta ayaa waxaa lagu saleeyay su'aalo dad ka badan 1,000 qof oo la weydiiyay inta u dhaxaysa 2014 ilaa iyo sanadkii 2016. taasi waxay ahayd sahan cusub oo caalamka oo dhan laga sameeyay. dadka ku nool daafaha caalamka ayaa noqonaya kuwa carada walwalka iyo murugada ay ku badan tahay.